السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada channelka Samir Ogaal. Vladimir Komorov waxa uu ahaa cirbixiyeen ka tirsan ciidamadii cirbixinta ee Midowgii Sofiyeeti ama dalka hadda loo yaqaan Ruushka. Sanadkii 1927 ayuu ku dhashay caasimadda dalka Ruushka ee Moscow. Waxa uu ahaa duuliye khibradiisu aad u sareyso, injineer sameeya dayax gacmeedyada iyo cirbixiyeen. inkasta oo uu laba jeer ku dhacay tijaabadii caafimaadka haddana xirfadiisa aadka u sareysay ee uu lahaa cirbixiyeenimada iyo cilmigiisa injineernimada waxa uu ka mid noqday rag fara ku tiris ah kuwaas oo 1960kii ay dawladda Midowgii Sofiyeeti u doorteen inay ka shaqeeyaan dayax gacmeedyada iyo waxyaabaha wada sare la xiriira. Sanadkii 1964 ayaa loo doortay inuu kabtan ka noqdo duulimaad uu sameeyay dayax gacmeedkii ugu horeeyay ee wax hal qof ka badan raacaan. Dayax gacmeedkaas oo lagu magacaabi jiray Voskhod 1 ama Voskhod-kii koowaad. duulimaadkaasna si nabad ah ayay dhulka ku yimaadeen balse khibradii uu ka helay duulimaadkan hawada sare ku aaday iyo cilmigiisa duuliyanimada awgood ayaa mar labaad sanadkii 1967 Vladimir Komorov loo doortay inuu noqdo duuliyaha kaliya ee kaxaynaya dayax gacmeed tijaabo ah kaas oo loo yaqaanay Soyuz-kii koowaad 23 bishii Afraad 1967 ayuuna dayax gacmeedkii Soyuz-kii koowaad ka duuliyay saldhigiisii dayax gacmeedkii Soyuz-kii koowaadna waxa uu ku guuleystay inuu hawada sare galo. Vladimir Komorov waxa uu noqday cirbixiyeenkii ugu horeeyay ee laba jeer duulimaad ku taga hawada sare. bilowgii hore qorshuhu waxa uu ahaa in marka dayax gacmeedka Soyuz-kii koowaad uu ku guuleysto inuu hawada sare galo laga daba diro dayax gacmeed kale oo lagu magacaabo Soyuz-kii labaad balse roobab duufaan wata oo jira awgood waxa la baajiyay duulimaadkaas. sidaa darteed markii uu marayay orbitka 18aad Komorov waxa uu damcay inuu dayax gacmeedka dib ugu soo celiyo dhulka balse markii uu bilaabay inuu dib ugu soo noqdo dhulka waxa uu shaqeyn waayay baarashuudkii ku soo degi lahaa marka uu soo galo hawada dhulka. waxa uu si dhaqso ah ula soo xiriiray xaruntii dayax gacmeedka laga diray isagoo aad u xanaaqsanaa. waxa uu u sheegay in uusan baarashuudku u shaqeynayn. balse arrintan ma ahayn mid wax laga qaban karo waxaana qaybtii uu saarnaa dayax gacmeedka ay si xawli ah ugu soo dhacday dhulka sidaas ayuuna ku burburay dayax gacmeedkii Soyuz-kii koowaad. sawirka idiin muuqda waa qaybo ka mid ah jirkii Komorov oo gubtay kuwaas oo laga soo saaray burburkii dayax gacmeedka. dhacdadan ayaana noqotay duulimaadkii ugu horeeyay ee hawada sare lagu aado kaas oo khasaare ka dhasho.